السلام عليكم وين سلامي ولا شيء في لسنتنا هذا قال سعتين وضو مركبة كان سود وهذا وورين هذا نقول سبتاي سبسكرايب نوصل وراه دانا لو جوك جتنا لسي جوك وحي فرينا كومنتين وغرب أصحابته لو ذاك أو شير كريه أي بني سلامي لكن كيلو بنا waxaan wada barnaamij kamid barnaamijyadii noo socon jiray baryaha kama soo hadlin waxyaabo kala macnaha soo galgalin jiraan ku yara mashquulay إن شاء الله مركب هذه هل كبير نوقف سعون دونا برنامج كيني إن تلوين كدوم مركب وصاب سنة ما أنتم حنا وضع إن قبري إن معناها قف هدونك وكوح ماضو أم بعد إسلام مركب وجوه رسبله وجوه رسب أسكت سبتين أرس سبتين إن أتقدر أنت إن معناها وحي إسبدل فربضان أو إسبدل ذاك الدواني إن محي هذي أتكواركتيد وحيابا أنكو قلمين ومحي هذي إن شرفت هذا إيو محي هذي إن دادني ماذا هذا هوس وليغا يو كليديا ها أوغلانين إن مدى كلا جرتو حويان إن هورتو محي هذي لبقف أو كستي أو إسقابا أنبيس بوسيدو أروس عصب إن أم بنتي كهوريس الشيكة أو معناه ولي لسقوسنين وحياة فربضان أو واحد جنتا بين أو خيالي لسقوش كيو هذا سياحات محمى إن لبدي قف مركي جوري وذي مادان وجوري صوب ذا كلام فل بدي عادي نبتة يصاب حسا وحياة فربضان وحلاقة يا بوقف كانوا كوسا بلن قادي أبا هذا لو قولن شري وخلي إن محي هذي أدويديد سيدو كلام محي هذي ويلكن أوايو هسياحات أنت مهمة دابا لقراعة هذا محا مهم waxaa muhiim ah in reerkiina wada dhaqataan inaydan dabeecadiina isku fiirfiirsanin wixii sheekada aad ku soo wada sheegsan jirteen ama si soo wada jirteen inaydan u qaadanin run oo macnaha wax inta lagu soo sheegay aad wixiina weyday qofkani inuu qof beenaale yahay waxyaabahaas oo dhan iska dhaadhicin waayo labada qof markii banaanka kala joogan intay iska arkayaan amba isku sheegayaan waa in yar laakiin marka la isku imaado la iska soo agtooso maxay ahaydey qof walba maxay qof kaste qofka kale uu arko inta soo saacad la wada joogo qof walba dabeecadiisa rabtaa wada arkaysa hase ahaato mar aliyaana marka sidaa maxay ahaydey aad u aragtid qofka dabeecadiisii oo isbedeshay macnaha sheekadii kadib waxa weeyaan waa wax iska dabiiciya maanta waa la isku yara buuqayaa horta maxay waxa la yiri guurka dhanba labada sano ugu horeysay weeyaan labada sano ugu horeysay haduu badbaado oo labada qof maxay haday aad iskugu sabraan oo mid kasta midka kale u sabro way inta dambana waa la isku sabrayaa waxa weeyaan wuna hagaagaya wax kasta laakiin maadaama labada sano ugu horeysay ay labada qof yihiin laba qof oo imka isku cusub mid kasta nolol kale u galayo qof walba uu guri kale ka imiday waxa wanaagsan in la isku sabro kow marka taa laga imaado waxa jirta dumarku markay uur yeeshaan in dabeecadooda isbedesho waayo ilmo dhan baa lagu dhex abuurayaa dumarka qaarkood stress walac baa ku furmaya walacaas wuxuu keenaa buuq fara badan wuxuu keenaa in wax walba u fiirsadaan wuxuu keenaa in wax walba dhibsadaan waxaas oo dhan iyada loogu yahay haddana waxa lagaga baahan yahay gabadha inaad sabirtid oo sabir badnaatid ninka sidoo kale waxa looga baahan yahay inuu dareemo xaaskan inay maxay ahayd ay wax iska bedeleen maadaama ay uur leedahay oo ilmo dhan lagu dhex abuurayo waa inuu dareemo inay maxay ahayd hormoonadu isbedelayaan oo taas buuq ugu wacan tahay intaas marka laga imaado hadaba maxaa jira oo adiga ku qalmin gabadha tahay waxaana ku qalmin in lagu leedo in lagu bahdilo maanta dhan oo maxay ahayd kamid tahay in lagu dilo kamid tahay in maxay ahayd bil lagu siin waayo iyadoo la haysto kamid tahay in maxay ahayd lagu qayliyo markastaba kamid tahay in waxa kasto wanaag wada qabatid aanay muuqanin xumaan tahay waxaasoo dhan qaarna waa loo samir karaa qaarna waa ma samir karo hase ahaatee waxa ka muhiimsan waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan waxaad arkaysaa dumarka Soomaaliyeed gabadh maxay ahayd nin bay qabaan ilmihii u horeeyay markuu soo calool galay ayay ninkii waxay ka aragtay dabeecado fara badan oo ka duwan sida dil inuu dilo kale inuu biilka bixin waayo qaarkood inay maxay ahayd guriga bay ima waayaan maalintii oo ka maqnaadaan habeenkii oo xilli dambe imaadaan qaarkood inay telefoon ku hadlaan maanta dhan shukaansi macnaha iyadoo joogto arkaysa waxaad arkaysaa maanta dhan inuu dilayo haddana guriga ay sii joogto waxaad arkaysaa maxay ahayd waxyaabo fara badan oo markay ka sheekeeyaan hase ahaatee ilmaad ku dhalaysaa ilmaha ugu hore marka soo dhashid go'aan waa inaad gaadhaa go'aankaas oo ah
maaha muhiim inaad qofka ka tagtid laakiin waa inaad qofkan xadis kaga samaysid waa inaad qofkan ku tiraadid wiilow dhegeyso aniga imaad soo dhalin imaad soo korson maxay ilmo yar dhashay meeyo guriga ku joogta laba qof waxaan nahay dambayna maxay isku galnay oo adiguna dambaad igu qabtaa ana damba ku qaba samaha okay sidan haddaad macnaha wax ka bedeli weydid anigu ma yihi qof bahdilan qof ma yihi meel aan ku laabto haysanin marka waxaan u baahanahay inaad dabeecadahan bedeshid haddaad bedelayninna kugulama sii noolaan karaye waan kaa baxaya intaas le qofka marka haddii maxay haday uu ku arkay inaad bahdilaadan iyo dhibaatadan aad kasoo horjeesatid uu ku dareemaya uu kaa maxay haday beenaya dumara waxaad ogaataane kale ninka ragga iyo haddii maxay haday uu gabadha ka arko jiljilaac iyo doqonnimo iyo waxaas uu ka arko horta adduunka wax jacayl la ma jirto sax waa run qofku uu jeclaan karaa wax laakiin jacaylka jeceshahay maaha inuu maxay haday bahdilaad ku ogolaado maanta waxaad arkaysaa gabadh ka sheekeynaysa dhibaato soo marisay saas baa la yeelay saas baa la yeeli jiray saas baa la yeeli jiray haddana waxa ku leedahay waan jeclaayo waxaas dhanba iima muuqanin waxaas jacayl lama idhaahdo waxaas waa doqonnimo anaa idin sheegaya dumarka Soomaaliyeed doqonnimo weeyaan doqonnimada iska dhaafa jacaylkan iyo waxaan khalad ka fahmina qof aan ku dhibaataynaynin oo maxay haday ku goolkoolinaya oo ku jecel oo wax ku dhibaatada ka ilaalinaya kaas baa la jeclaada laakiin qof dhibaataynaya oo maxay haday ku bahdilaya jacayl lama idhaahdo waxaas kale doqonnimo iyo inaad lagu adoonsado ayaad ogolaatay waxaas iska dhaafa waxaad arkaysaa waxay ku leedahay marka ilmuhu ugu horeysay aan uurka uu ii galay ayay maxay haday igu bilaamatay dhibaatadaasi haddana waxay ku dhalaysaa 4 5 6 10 ay ku dhalaysaa ugu dambayntana waa la furayaa markaas ugu horeysay waxay taagan tahay marka ilmuhu ugu horeeyay dhalay waxaan istirmaa ilmaha aab la'aan dhigi imka aroos cusub tahay sidan iska sabir kiba 10 carruur ku dhalay bes ka horeysa okay ugu dambayntina waa lagu furay maxaad ka sameeyay markaa aab la'aantii ilmaha kale carrareysay way kugu dhacday adigoo fudud oo hal ilma amba laba ilma haysta ayaad ka tigi weyday oo fudud imika markii 10 ilmood lagu raray ayaa laga tigay oo lagu furay waxay faa'iido culays fara badan bahdilaada naftaadu soo jeeday iska xanuun kugu dhacday waxa soo dhabad faa'iido laakiin marka ugu horeysa bilowga ay shaqada kugu bilaabato haddii aad go'aan gaadhid inaad ilmaha isku badanin kow ninka haddaad ka tigi kartid inaad ka tagtid haddaan ka tigi karin qasab maaha ilmahaaga duu dareen kartaa naftaada maxay haday aad arkaysaa waxay macnaha say tahay wax kasta dhici kara qofku uu kula joogi kartaa laakiin adduunka aakhiro laguma weydiinayo maxaad ilmo badan u dhalweeyay laakiin waxa lagu weydiinayaa naftaada wixii caafimaad dareen ku yimaada iyo ilmahaas labaduba lagu weydiinayaa hooyo maxay istaraysan oo ku furan yahay oo maanta la dilayo la bahdilayna ilmo si qurux badan ma koriso ma soo saarto runta wanaagsan caruurahan Soomaalida ee wada dhibaataysan ee waxa ku dadka dilaya ee waxa ku cararaya ee waxa ku waxa soo dhibaato sameynaya raggan hablaha ee kufsanaya wax kasta sameynaya waxa weeyaan waa dad lagu soo koriyo stress hooyo stresssan aabo bahdilaad wada iyo hooyo waxa ku marna dhinaca ku ooyisa marna waxa ku ilmihii dilaysa mar tumaysa mar waxa ku cunto qasab ku siinaysa waxa soo looga baahnaa nafis naftaada u raaxee ninka haddaad aragtid inaad la noolaan kartid ilaahay ragii dumar uu isku abuuray la joog carruurtaadana ku horso haddaad aragtid inaad la joogi kareenin hal iyo laba markaad haysatid aad aragtid qofka inuu bahdilaad uu wado ka tag halkii labadaas ma korso ma garatay marka barnaamijka mar baynu sii dheeraado aad baan salaamaya intaan ku kulmayno barnaamijka mid ah waxaan kaga tagayaa salaam allah